qaladka ay sameeyeen ayaa ahayd inay la barbardhigeen Lamine Yamal. Taageerayaasha Barcelona oo si aad ah ugu maadeysanaya bandhigii liitay uu xalay sameeyay daayarka Real Madrid ee Frank Mastantuono, ciyaaryahankan oo welina ku dhiban inuu gool dhaliyo ama uu caawiyo kooxdiisa. iyo hadaladii laga yiri bandhigii uu xalay sameeyay kulankii kooxdiisa ay la ciyaartay Mallorca ayaa muuqaalka kuugu sheegi doonaa koorintan bilaabinaha moogaan inaad u taawato koobilinka fara badan. haddii aad nagu cusub tahay inaad folowna soo dhahdo aad ka mid noqoto saaxiibadeena halkan waa hagaag saaxiibayaal. guud ahaan mucaaradka Real Madrid ayaa ku maadeysanaya bandhigii liitay uu xalay sameeyay daayarka reer Argentine iyo midka Los Blancos xagaagan ay kala soo wareegtay naadiga River Plate ee Frank Mastantuono, isagoona ciyaaryahankan labadii kulan ee uu ku soo bilowday line-upka Xavi Alonso iyo guud ahaan shaxda Real Madrid xitaa awoodi waayay inuu fursad u abuuro xidigaha kooxdiisa. Frank oo kulankii toddobaadkii tagay Real Madrid ay la ciyaartay Real Oviedo qaatay bandhig aad u liitay ayaa xalay mar kale nasiib u yeeshay inuu ku soo bilowdo shaxdii koowaad ee ka hortageysay naadiga Mallorca, laakiin nasiib xumo ciyaaryahanka maanu awoodin inuu sameeyo bandhig ka wanaagsan midkii liitay ee uu sameeyay toddobaadkii tagay. taageerayaasha Barcelona oo ku maadeysanaya bandhigii ciyaaryahanka ayaana leh qaladka ugu weyn ee ay sameeyeen taageerayaasha Real Madrid waa markii ciyaaryahankooda ay la barbardhigeen superstar-keena Lamine Yamal, gaar ahaan ciyaaryahanka markii uu bedel ku soo galay kulankii Osasuna, isagoona markaas qaatay 20 daqiiqo oo aad u qurux badnayd, taasoo ciyaaryahanka ka saaciday inuu helo booska koowaad labadii kulan ee ku xigtay kulankii Osasuna. haddaba sidee ayuu kula muuqdaa bandhigii uu Frank Mastantuono sameeyay labadii kulan u dambeysay uu u ciyaaray kooxdiisa?